الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين وسida ay dhalinyaradu horeba u sheegeen ay iyagoo wada duuban iyo arrinkoodii fikirkoodu isku mid yahay ay ilaahay ayaan anaguna taalo wada qabnaa jamiican xaal jamhuuriyadda Soomaaliland inta ay ka tiralaatay bariga galbeedba waxa weeyaan axsaabtan mucaaridka ah nidaam mucaarid oo asaxa oo ay ku shaqeynayaan uma aragna waxaan u aragnaa inay markay fartu timaadana dadka kaga iibsanayaan in yaro qaadayo ruwaayad marka ay taqootana ay ka wareen hal allaale hal xildhibaan oo dalkiisa deegaankiisa meel wax u soo qabtay ma jiro taas waa mid axsaabtan mucaaridka ee marna intay dhoofaan garaamka yar soo qaadanaya halkan la imaanaya ee gawaarida inta shidaalka ku shubtaan la warwareegaya halkan aan wax shir ku qabanaa halkan aan wax ku qabanayna iyagoo ubadkoodii mustaqbalkoodii meel soo dhigay jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa kaga qaadan kari maayaan cod haddaan nahay shacabka Soomaaliland si guhiyo shabaabka Soomaaliland waa mid labaad Cabdiraxmaan Ciro waa gudoomiyihii baarlamaanka meeshinka inuu soo sogo baarlamaanka intuu dejiyo oo ruliyo oo yiraaho kaalaya oo fadhiistaan ansixinad oo xeerkii doorashooyinka qodobka uu soo diyaariyay isaga looga fadhiya ma garatay xisbiga wacid Faisal Ali Waraabe waa nin mujaahid oo wanaagsan dhinac uu dhigaya dhinaca kalena uu dhigaya isaga laftiisana waxa looga baahan yahay inuu dhinac uu suga xaq la toosisto oo marna ka yeelimayno xukuumadda marna waxa ka yeelimayno waa inuu ra'yigiisu mid noqda waxa la dadmaysan dharka la iska hadafkaagu waa inuu waaxid noqda Faisal Ali aan soo noqon waa mid ninkan Cabdiraxmaan Ciro isagu maalintii mudaaharaadka bariyii uu ururinayo lahaa kaalay waxba uu sameeynaa ee golaha guurtida lagu la ballansanaa soo kii xildhibaanadiisii dib uga baxay maahay ka kacay kursiga xus u codiyo iyo kulmiyaba kaga baxay ee mar qura laga waayay kursigii gudoomiyaha golaha guurtida ay lagu kala saxeexay heshiis maalintii dambe ee la yiri mudaaharaad baan sameeynaa dhalinyaradii la socotay ee raacisay kii kaga baxsaday la waayay mar qura la xidhay qoladii la socotay miyaan wahay marka muxuu ka sheekeynaya hadduu isagii dabada gelayo intuu raana keenaanu dagaal tagnaa dabada gelayo ninku waa inuu isagu ka hor dhintaa ku raaca maxaa lagu dhimanayaa xisbiga wadanisa lagu raaci maayo waa inaad wixii aad karaan iyo karti iyo fikir iyo mabda la keentid laakiin intaad maalinba markaad garaamka yar qaadataan halkan ka boodaan markaan tiraahdo dalkan qasana yeelmayno waxa qasi karaysan bal qas ayadin ka futaxo ساسا نقول لنا هذول الشباب كنا من أغلب ما نمشون شعب كسوق عيدا يرى سوق عيسى مستقبل كذل كوا النجا هذا سليدين إما كأب في ريتاير باتين استريح هذا مسح اليوم مرابط الحدون تي سلام الله عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن كم إذا أقويها كي وحكرت كا لليرة السومالي الآن وصيدا أو شيء عبد الرحمن عرفو مظاهرات كي ما أنتوا قبل قابلين أيه وحلوح ولا يسقال لليرة oo ka soo jeegda gobolka garada degmada garada wuu kaga baxay isagaana ku yiri mudaharaadka qaban qaabiya waana intii kula socdaa hadana arinta uu kaga baxay waxaan uga goleeyahay uga soo hadalkaas oo dhan u soo wadnaa xusbiyada mucaaradka ma diidanin saddexdan xusba qaran waa saddex xusbi oo soo baxay laakiin labadan xusbi qaran ee mucaaradka habba dilay nidaamkooda siyaasadeed hadii ay shacabka Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland cod sida kaga doonayaan assalaamu alaykum wa